Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa idin salaamay walaalaha igu qaaliga ah meel walba oo dunida ka joogtaan. Kusoo dhawaada janalkayga halkaad igala socotaan waa Fahima Janal. Soo dhawaada ayaa idin leeyahay. Asxaabey, maanta waxaa idin wadaa qiso xanuun badan oo ku dhacday gabar lagu magacaabo Samsam oo ku nool wadanka Mareykanka. Qisadeedana sidatan ayay ku bilaabanaysaa. Samsam waxa ay tiri hooyaday ayaa la noolaa. Aabahayna waa uu dhintay. Hooyaday waxaa qaba nin kale oo ay caruur u haysay. Runtii waxaan ahaa bay tiri qof aad u kulkulul oo dabeecad qallafsan. Yaraanteedii marka aan soo xasuusto aniga ayaa isdareemi kara in aan ahaa bay tiri qof aad u dabeecad xun. Hooyaday intii aan la noolaa waa uu ii dulqaadan jirtay waa ayna ii samri jirtay maadaama qof aad u kulkulul oo dabeecad xun oo aad u dhib badan aan ahaa. Waxaan soo gaaray in aan weynaado. Hooyaday waxa ay ii soo bandhigtay inay igu darto ama aan guursado nin ka imaado dibadda oo nin dhaqaale xoogaa iska haysta ahaa. Hooyaday waxaan u sheegay aniga inaanan guur rabin, haddii aan guur gaarana aan nin keensan doono. Hooyaday waa ay diiday. Ninkii ayay igu qasabtay kadibna ninkii ayaa la ii guri geeyay bay tiri. Ninkii waxaan ku biloobay dagaal. Hooyadeyda sidoo kale waan la dagaalay waxa aana ku iri mar dambe kuma soo xiriiri doono ha ii imaanin anna kuma imaanayo. Isma soo galno aniga iyo adiga. Hooyo fiican ma tihid. Waxa aan kaa sugaya iyo waxa aad ii samaysay isma laha. Nin ayaad qoorta ii gelisay laakiin maanta kadib waa kaa tashan doonaa oo aniga kuma soo raadsan doono. Hooyaday ayaan si xun ula hadla bay tiri. Ninkii ayaana go'aan ku gaaray in aan la joogo oo aan ninkaasi sidii aan iskaga furi karo aan falkeeda aan galo. Ninkii baa waxay tiri maalin kasta la dagaali jiray. Habeenkii oo dhan inaan ka soo dhaxo guriga ayaa sameyn jiray. Maalintii oo dhan waa maqnaa. Hooyaday aniga oo ereyadaas xun kula hadla haddana maysan iga joogi jirin oo ninka ayay markasta dhihi jirtay gabadhan waa gabar yar ee u dulqaado. Waxa ay isku dayi jirtay inay wax ii sheegto laakiin badanaa isma haleeli jirin oo haddii ay isoo wacdo telefoonka ayaan ku dhageysan jiray ama haddii ay ii timaadana 2 daqiiqo islama fadhiisan jirin oo ma wada sheekeysan jirin. Waa ka tegi jiray agteeda aniga oo xanaaq ciil iyo carab badan iga muuqdo. Hooyaday ninka ay ugu dartana aan ka xumahay. Waxay tiri ninkii ugu dambeyn waxa uu keenay in aan isfahmi weyno maadaama aniga aanan ahayn qof dhaqmaysa oo aan gurigiiba ku hakaneyn oo habeen iyo maalin laga yaabo inaan guriga ka maqanahay oo gabdho aan isbarano ayaan kusoo dhixi jiray bay dhahday. Ninkii waxa uu u sheegay hooyaday inuu ifurayo oo aan kala tagayno. Hooyaday waxay ku tiri gabadhu waa gabar yar ee u samar. Hooyaday ninkii bay ku tiri gabadheeda wax badan ayaa dabeecadeeda iyo nolol ahaanteeda ka bedeli doonaa ee reerkaaga dhaqo oo gabadha ha furin. Hooyaday waxa ay rabtay in ninka uu ii soo kaxeeyo qurbaha maadaama uu qurbaha ka imaado dhaqaalana uu haystay laakiin anigii ayaa la igu kari waayay. Ninkii waxa ay tiri hooyaday waxa ay bilowday inay canaanato marmarka qaar aniga oo ninkii i qabo oo qof weyn ay garaacdo laakiin waxay tiri waa la igu kari waayay ninkii waxaana go'aansaday hooyaday iyo ninkiiba inaan ka dhuunto. Waxaana soo aaday bay dhahday wadanka Kenya. Halkaasi ayaan ku noolaan jiray. Dabeecadeedu waxba iskama bedelin oo aad baa u kulkululaa qof aad u dabeecad qallafsanna waan ahaa. Hooyadeyda maalintaas ayaa iigu dambeysay dib dambe uma soo wicin. Markii aan ka soo tagayana waan u sheegay waxa aana kula hadlay erayo aad u kulkulul aad u xunxun oo hooyaday runtii qalbigeeda aan u wanaagsaneyn. Laakiin waqtigaasi waxaa ii muuqatay ninka ay hooyaday igu dartay oo ima muuqan hooyadeedii igu soo daashay igu soo rafaaday. Kenya markii aan imaado hooyaday ma raadin mana wicin. Ninkii sidoo kale muddo markii aan joogno adiga waxay tiri 2 sano kadib ayaan waxay tiri nin meeshii isku baranay. Ninkii aniga iyo ninkii waxaan ku heshiinay in aan isguursano. Maalintaas ayaan waxay tiri waxaan isku dayay inaan waalidkayga raadiyo oo aan ninkii iyo hooyaday raadiyo oo aan ka dalbado furiin haddii uu diidana aan ninka aan doonayo aan guursado. Ninkii waan wacay bay tiri hooyadeedii baa wac ninkii baa la ii raadiyay. Ninkii waxa uu yiri markii aad baxdo ayaan ku furay haddana lagama yaabo in aan kugu noqdo. Sidaas iyo aniga iyo adiga nabadgelyo. Hooyaday waxay tiri waxa ay ii sheegtay ninkii inaan kala tagnay hadda kadibna ay xur tahay labadeenana colaad aysan dhexdeena ka taagneyn. Hooyaday waxa ay tiri markaas saas igu tiri aad baan u farxay. Ninkii aan watay oo ii diyaarsanaa oo asna qurbaha ka imaada ayaan halkii isku guursanay. Waxa ay tiri waa uu iga tagay ninkii 2 bilood ayaan meeshii joogay.
canug baan dhalay kadibna ninkii ayaa ii soo dacwooday oo waxaan aaday bay tiri Mareykanka. Hadda waxaan ku noolaa waddanka Mareykanka. Markii aan imaado Mareykanka canug kale ayaan dhalay. Hooyadeediina dib dambe xiriirkeena aad buu u yaraa maadaama intii aan Kenya joogo oo ninka dambe uu i guursan xiriirkeena uu aad u yaraa. Hadalla aad u xunxun oo aad u qallafsan aan ku dhihi jiray dabeecadeydana aysan waxba iska bedelin. Markii aan labada caruur ah dhalay kadib hooyadeyda waa ay dhimatay ayay tiri. Runtii maalinta la ii sheegay geerideeda markii hore ciyaar ayay ila ahayd inaan hooyaday hadallo xunxun ku dhaho, laakiin markii geerideeda la ii sheegay ayaa runtii qarracmay oo aan naxay. Hooyadeedii aan ogaa intii xumaan ahayd aan u geystay hadalladii xunxumaa oo aan hooyaday dhihi jiray ayaa igu soo dhacay. Waxaasoo dhanna waxaa igu kalifayay ninka ay hooyadeedii igu dartay iyo sidoo kale aniga oo dabeecadeyda aad u xumeed ahaana qof aad u dabeecad xun. Laakiin hooyaday waa ay ii sabraysay ayay tiri, weligeedna hadal xun iyo hadal kulul ima dhihinin. Aniga ayaa u heystay inay tahay cadowgeyga iyo qof aniga ii daran, balse waxaan ogaaday markii hooyaday ay dhimatay hooyaday in ay ahayd hooyo aad u wanaagsan, garabkeygii midigna uu jabay, aniguna aan ahaa qof aad u xun. Intaas kadib waxaa igu dhacday bay tiri labadii canug aan dhalay in ay igu noqdeen laba canug oo aad u xunxun dabeecadooda iyo sidoo kale dhaqankooda. Dabeecadii iyo dhaqankii aan lahaa ayay la soo baxeen bay tiri. Hadda waxaan haystaa labadii ciyaalka aheeday. Waxa aan moodaa inay caruurteedii caasiyaal iga noqdeen. Hooyadeedii igu soo daashay igu soo rafaaday markii aan ku caasiyay oo aan erayo aan u qalmin ku oran jiray. Markaas waxa ay tiri aqligeyga ayaa yaraa, dabeecad ahaana dabeecadeeduna aad bay u xumeed. Ma jirin qof aan kala tashto, saaxiibo xunxunna waan lahaa bay tiri. Laakiin maanta ayay i haysataa in hooyadeediina aan waayay, ninkii aan guursadana caruurtiisu ay ugu noqdeen caruur caasi ah oo hooyaday wixii aan ka gooyay erayadii xunxumaa ee aan ku dhihi jiray in maanta la igu dhaho ciyaalkeygu ay igu dhahaan aniga ayaa isku keena bay dhahday. Samsam oo aad u ilmeyneyso ayaa qisadeedan ku soo qortay barteeda Facebook ilana soo wadaagtay. Runtii waa qiso xanuun badan. Gabadhan magaceeda saxda ah Samsam ma aha, laakiin qisada markii ay soo qoraysay ayay ku soo qortay Samsam si dadka kaleeto oo ay isgaranayaan aysan u ogaanin in hooyadeed ay ku aheeday qof aad u xun. Marka asxaabey waa idiin mahadcelinayaa. Dadka bini'aadanka isku mid maaha, waalidiintana sidoo kale. Waalidka laakiin markasta waalidka gartiisii gardaradiisa waa gar. Canuga ayaa la rabaa in uu sabro oo dul qaato. Sidoo kale Samsam ninka lagu daray kolley hooyadeed waxay ugu dartay inay reer yeelato, laakiin gabadheeda Samsama ayaa guurkii diiday. Samsamna waxay u qaadatay in hooyadeed ay ugu darnaaneysa ninkan da'da ah ee dibadda ka yimiday oo ay isleedahay ninkan xun gabadhaada ha dhaqdo. Hooyadu waxa ay ka waday gabadhaada ha kuu noqoto gabar reer leh degan oo awlaadeeda aad aragtid, laakiin anigu si kale ayaa u fahma bay dhahday. Runtii waa qiso xanuun badan. Maalmahan qisooyinka asxaabey waan hakiyay, mashquul ayaan iska yara noqday, laakiin qisooyinka muhiimka ah oo asxaabta ay la soo wadaagaan waa idiin soo gudbin doonaa insha Allah. Waan idiin mahadcelinayaa. Samsam wixii aad ka dhigi kartaan insha Allah la soo wadaaga. Waana idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ay la socotaan iyo sidii aad ugu soo jawaabteen walaalihii kale ee qisooyinkooda ay idiin soo gudbiyay. Sidaas iyo waxaan idinkaga tagayaa muuqaalka xigo. Nabadgelyo.